heshiiska qaramada midoobay oo doorka haweenka kor loogu soo qaadayay. Wadankeena horumar fiican buu sameeyay, laakiin ma gaarsiisano heerkii haweenka sidii aan ka rabnay ma gaarsiisano. sida adduunka oo kale ama bulshooyinka kale waxaa jira dad baahiyo gaar ah qabo, dabiici ha ahaado si kale ha ku imaado, laakiin annaga waxaa noo dheer burburkii wadankeena ka dhacay. qof kasta oo wadanka imaado wuxuu arkaa burburka wadanka ka muuqda iyo dhibka iyo jajabka. arrinta koowaad oo uu arkayo qofkii soo galo. arrinta labaad waa dadka naafada ah oo uu saameeyay dhibaatada qaraxaas, ama il ha noqoto ama madax ha noqoto ama dheg ha noqoto ama lug ha noqoto, saameyn weyn oo uu ku yeeshay. waa marka labaad oo arkaysid waxyaabaha aad arkaysay ka mid tahay. gabdhaheena Soodan waxaan u taaganahay sidii aan u horumarin lahayn ama aan wax uga qaban lahayn dadka naafada ah guud ahaan, gaar ahaana dadkii burburka saameeyay oo dhibka ku dhacay, inaan u helno sidii boogtooda loo dhayi lahaa, sidii maxay ahayday boggooda burcad la iskugu marin lahaa, sidii ay u saamix lahaayeen wixii dhibka u geystay, si nabad waarta loo helo. fiiraan bixinta laba nooc oo sameeyna waxa uu sameeynaa dad baahiyaha gaarka qaba ku dhasheen iyo dad dhibaatada iyagoon ku dhalanin dib ka soo gaaray. marka u soo gudubna arinta kale oo dadka aanan ku dhalanin oo dhibaatada soo gaartay iyagana laba qaybood oo kala qaybinay. labada qaybta koowaad waa dad dhibaatada ka soo gaartay qarax ku dhacay, halka kuwa kale ay yihiin dhibaatooyinka ka soo gaaray xabad. waxa uu sameeynaa barnaamij ah nabadeen. qofka sidoo qof dhibaato markuu u geysto sidoo xabadoo kale qof ku dhiftay asagoo wax ka dhacay amba asaga qofka iskhilaafeen oo kale sidee doontaba ha noqotee, qofkaas oo kaleeto waxaa laga yaabaa qofkii wuxuu ku sameeyay inuu colaad u qaado, qofkii isku dayo siduu qofku uga aarsan lahaa oo biri u noqon lahaa qofkii sidoo adigu ku yeelo kaleeto adigana yeel qofka inuu ku fikiro. iyadoo gaari la dhacay dhibkaasna waxaa keenay burburka wadanka soo gaaray. nin shaqaysto oo lugiis ku shaqaysto fiican oo gawaarida BL ka wada ahay meel bastooja gaarida dhaca xabada dhabarka ka dhacday. isbitaal la igeeyay lugihii qaybtii dambe uu shaqay weyso. isbitaalka markaa ka soo baxo xaafadda la igeeyay dhibka gaaray ka badan mid maskaxiin ah ay gaaray. ana barbaleemkaas ay haysto oo noloshii ugu adkaatay oo aan markii hore nin laxaadiis qaba ahay, markii dambe waxaa hay'adan igala shaqaysay si aan noloshii ku soo kabtala kula soo laaba lahay oo dadka uga mid naqalaha. gaari gacanta laga wadaan samaystay, gaarigii taksiil aan ku naqday oo ku shaqaystay 2018 waa guursaday. anigii haddeer dadkii baraarujiyo xaafadii ugu tago soo bixiyo guryaha ka soo baxa dhaho dadka la mid naqda dhaho. iskoolkan aan dariska la nahay waxaa jira arday yar oo gaari waayay galaaska markuu imaado banaanku fariisan jiray ardayga. macalinka ayaa wuxuu sameyn jiray macalinka qaadi jiray, macalinkuu sugaa ilaa macalinka xiisadda uu ka soo dhameeyo. hadduu xiisadda macalinka ku jiro imaado wuu sugayaa, markuu macalinka xiisadda soo dhameeyo ardayga qaadaa galaaska gelinaya, haddana wuu soo dejinaa. waxaan ka qayb qaadanay access uu u maray si uu u helo ardaygaas iyo ardayda la midka ah oo iskoolkii soo geli lahaa oo uga baqay access la'aantaas.